السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاليال mar walba faa'iidooyinkeenna ayaa soo cusboonaanaya hadday noqoto qisa diiniya ama mid bulshada ka dhex dhacdayba ama macluumo kaa qarsoonayd oo aynu daaha kaaga qaadayno iyo dardaarmo dhinacyo badan oo noloshaa ku saabsan faa'iidooyinkeenna ayagoo soo cusboonaanaya maalinba maalinta ka dambaysa maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa waxa weeye insha allah sidaad oga takhallusaysid isha iyo sixirka iyo waxyaalaha noocaasa ee cudurrada ku dhaca nafta walaalo badan waxay la daaladhacayaan xasad iyo daal kasal oo ah yacni wahsi mawduucan ayaannu uga faalloonaynaa arrimahaasi sida uga takhallusi lahaa ilaahay idinkiis arrimahaas oo ah kuwo fudud oo rasuulka ilaahay noo sheegay tilmaamayana diintan weyninkay la eg tahay iyo naxariista ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisa iskama xijaabayo iskama qarinayo bimacnaa albaabka kama xidhanayo qofka hadduu doonayo inuu ilaahay baryo waa fadhiisanayaa qacmihiisuu kor u taagayaa waana ducaysanayaa ilaahay buu baryayaa dantiisana buu u sheeganayaa qof aad ilaahay u sii maraysid ma jiro ee ilaahay toos u bari rabbi asagaa yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ilaahay wuxuu ku leeyahay ibari waa kaa ajiibayaa aayaddaani waa aayad xeel dheer waxaynu ka fahmaynaa waxa weeye ilaahay addoonka ducada waa ka aqbalayaa wuu maqlayaa asagoon u baahan cid uga soo gudbisa wuxuu ilaahay dareemayaa qofkan xanuunka haysta iyo dhibaatadu meeshay ka haysato iyo siday ugu imaatay qofkaan hadduu ka cabanayo ilaahay waa og yahay haddii sixir uu hayo ilaahay waa og yahay dhammaan arrimahaasna waa wax jira oo cudurrada dadka ku dhaca ka mid ah ka takhallus waxaasoo dhan iyadoo arrimahaas inta badan uu sababo xaasidnimadu qofka asagu naftiisa ha ku tufo adkaartii nebi maxamed ka soo aroortay iyo aayaadka qur-aanka ha iskaga tufo waayo qof muslimaa tahay waxyaalahaas waxbaad ka garanaysaa oo waan hubaa qofka naftiisa arrimahaasi ha uga xifdiyo sharka kala duwan qofka muslimka mararka qaarkood hadduu xanuunnada dareemo waxaa laga yaabaa inuu aado qof ku tufo oo ku akhriyo oo khayr uu ku tuhmayo taasina dhib ma lahan laakiin waxaa ka sii fiican adiga naftaada inaad ku tuftid walow suuratu faatixa iyo qulwallaba ha ahaadeen sida sii fiican waa qofka naftiisa inuu ku tufo waayo taasaa ikhlaaska u dhow adigana weeye qofka dhibaatadu haysato niyad kale yeelan maysid niyad adduunye iyo wax kale toona markaad isku tufaysid ikhlaas iyo tadaruc baa kaa muuqanaya marka sidaasaa fiican ilaahayna waa jecel yahay addoonkiisa codkiisa inuu maqlo isagoo asaga soo magangalay oo baryayo tuugaya adkaartii ducooyinka iyo isku daaweynta arrimaha ku saabsan ee rasuulka ilaahay ka soo aroortay sala allahu calayhi wasallam waxaa ka mid ah suuratu qul huwalle iyo suuratu qul acuudu birabbiilfalaq iyo suuratu qul acuudu birabbiinnaas qof walbaa yaqaan dadka qaarkood markii qur-aan laysku akhriyo ay arrintaasi maqlaan waxay u haystaan qur-aanka dhammaantiis iyo kuwa isa aqoonin loo dirayo laakiin suuratu faatixa sooma taqaanid waa taqaanaa oo waa hubaa waayo qof muslima tukadaa tahay qul huwalle sooma taqaanid qul acuudu birabbiilfalaq sooma taqaanid qul acuudu birabbiinnaas sooma taqaanid sooma taqaanid idaa zulzilad sooma taqaanid qul yaa ayuha alkaafiruun sooma taqaanid aayatulkursi sooma taqaanid ida asamaa unshaqat allaahu akbarta sooma taqaanid juscama sooma taqaanid jus tabaarak sooma taqaanid qad samic sooma taqaanid waa taqaanaa oo waan hubaa in badanoo suuradaha ka mida waad garanaysaan haddii xanuunnada noocaasa aad dareentid iyo welwelka iyo walbahaarka iyo daalka wahsiga iyo waxyaalaha noocaasa iyo tabardarrada ilaahay magangal ilaahay xaggiisa u carar qacmahana kor u taago aayaadkaas iyo suuradahaasna isku akhri si dhab ah oo run ah ilaahay waa kuu run sheegayaa wuu kuu soo jawaabayaa waayo addoonkiisaa tahay oo dhibaataysan waxaad aamintay dhibaatada ku haysata cid aan isaga ahayn inuusan qaadi karin ilaahay baad u soo carartay ilaahay baad tuugtay ilaahay waa ku soo ajiibayaa wuuna maqlaya hadalkaada walow hoos baad u dhigtide isagaana amray inaynu tuugno oo aynu barinno oo aynu xaggiisa u soo cararno iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isagaynu kaalmaysanaynaa marka halka aynu wada jihaysanno dhammaanteen walaalayaal cudur nagu haraya ama jidhkeenna ku haraya ma jirayo insha allah biidni illaahi jalla jalaaluhu wacduma sultaanuh markaad isku akhrisid isku tuf qacmahaada ku tuf sidaa jidhkaada u mari markaad seexanaysid iyo xilli walbaba waxaa ku sii dartaa aayadahaas ama suuradahaas intaad taqaanid ducadatan haddaad horay u aqoon hadda baro haddaad hilmaantayna dib u xasuuso oo qoro insha allah waxaa weeye ducadu waa duco nebiyullaahi moxamed labadii wiil awowga u ahaa ee faatuma dhashay oo ilaahay ku magangeliyey rasuulka ilaahay wuxuu yidhi bismillaahi arqiik min kulli shayin yu'diik wa min sharri kulli nafsin aw caynin xaasid allaahu yashfiik waxaa weeye magaca ilaahay sababtiisaan kugu tufayaa shay kastoo ku dhibaya ayaan kaa daaweynaya oo magaca ilaahay kaaga daaweynaya naf kasta sharteeda ayaan kaaga daaweynaya magaca ilaahay ama ilxaasidada sharteeda ilaahay baana ku caafimaadinaya iyo ducadii kale ahayd acuudu bikalimaatillaahi taammaat
kelimaadka ilaahay dhammayska tiran ee awoodda badan ayaan magan galay min kulli shaytaanin shaydaan kastaan ka magan galay iyo wahaamatin haamadu waxa weye wax kastoo dhulkaa socda cayayaanoo dadka dhiba iyo wa min kulli caynin laama iyo il kastoo wax durta yacnii ishii qumayada iyo wixii la midkaha xasidnimada iyo sixirka dhammaan waxaasoo dhan wey ayaana ilaahay ka magan gelayaa intaad isku akhrinaysidna biyahaada yarkaa weelkuugu jira ama galaas ama wax la mid a agtaada ha yaaleen oo ku tuf si niye leh inaad ku caafimaadaysidna u cab muhiimaddu waxa weeye qofka muslimkaa asagu inuu isdaaweeyo oo isku daaweeyo aayaadkaas iyo adkaartaas qof wanaag ha tuhmaysid inaad igu tuftiraahidna dhib ma lahan